Maryam Betronin oo horey loo oran jiray Sofia waxay ka shaqayn jirtay arrimaha samafalka. waxaa muddo 4 sano afduub loogu haystay dalka Mali, waxaana la soo daayay oo xornimadeeda dib u heshay 3 usbuuc ka hor. markii ay dalkeeda dib ugu soo laabatay ayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hortiisa ka cadaysay in ay diinta Islaamka qaadatay. Maryam waxa ay markii ugu horeysay ka falcelisay qalalaasaha ka abuurmay dalka Faransa ee la xiriira sawirradii lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waraaq ay arrimo badan kaga hadlayso ayay u qortay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. warqadda ay Maryam Betronin ay u dirtay madaxweyne Macron waxay u qorayd sidan: mudane Macron, nabadgelyo korkooda ha ahaato inta raacday wadada hanuunka. waxaan ogahay inaad la yaaban tahay sida Sofia Betronin oo ah caddaanka asalka ee Faransiiska haysatayna madhabta Kaatooliga ay u islaamtay kadib 75 sano oo ay masiixi ahayd, iyadoo 4 sano ay afduub u haysteen muslimiintu haddana ay islaamtay. mudane Macron, ii ogolow inaan arrimaha jira kuu fududeeyo oo aan ku fahansiiyo. maxbuus ayaan u ahaa muslimiinta, laakiin marnaba ima ay xumayn weligood. qaabka ay ila dhaqmayeen, qaabka ay ila tacaamulayeen, dhammaan waxay ahayd mid ku salaysan xushmad iyo qadarin. waxay ahaayeen kuwo isiinayay raashin iyo cabitaan. naftooda naftayda ayay ka hormarinayeen iyagoo aan waxba haysan. xaaladayda gaarka ah ayay ii qadarinayeen. ma jirin qof hadalkayga ama jirkayga igu faduulin jiray, ama ma aanay caayin diintayda, ciise iyo hooyadii Maryam, sida aad idinku ku samayseen Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. iyagu igumay khasbin islaamka, laakiin waxaan arkay dhaqankooda. waa dad isku nadiifiyey biyo, dabadeed 5 jeer u tukada Eebbe, bisha Ramadaanna sooma. mudane Macron, muslimiinta Mali waa sabool. dalkoodu waa sabool. kama dhisna burjiga Eiffel, mana yaqaaniin barafuunada Faransa, laakiin jirkoodu waa naga nadiifsan yahay, qalbiyadooduna way naga dahiran yihiin. iyagu ma haystaan gawaarida raaxada, mana ku noola guryo waaweyn, laakiin hankoodu wuxuu ka sarreeyaa daruuraha, caqiidadooduna waxay ka adag tahay buuraha. mudane Macron, weli noloshaada ma dhegaysatay qur-aanka oo la akhrinayo? iyagu salaadooda ayay ku akhriyaan qur-aanka maalin iyo habeen. maxaa ka qurux badan marka ay akhrinayaan? xataa haddii aadan fahmayn waxa ay akhrinayaan, korkaaga ayaa qarqaraya. adiga oo dhegaysanaya iyaga oo akhrinaya hadalka Eebbe kor ahaaye, waxay ka xifdisan yihiin dusha. markaas ayuu caqligaaga hoose fahmayaa inuusan qur-aanku ahayn hadal dad leeyahay, laakiinse uu yahay laxan ka yimi samada. waxaa hortaada ahaanaya rabitaan xooggan iyo inaad ogaato macnaha laxanka samada oo ay habeen iyo maalin akhrinayaan. mudane Macron, adigu noloshaada ma u sujuuday Eebbe hal sujuud oo keliya? oo foodaada ma ka yeeshay mid taabata dhulka? ma kula faqday Eebbahaaga walwalka ku haya iyo inaad nimcooyinkiisa uga mahad celiso sida iyagu ay sameeyaan? weligaa ma dareentay u dhowaanshahaaga dhanka Eebbe iyo u dhowaanshihiisa dhankaaga? mudane Macron, midabka haweenkoodu waa dhuxul madow, laakiin qalbiyadooda ayaa u cad sida caanaha. waxay xirtaan dhar fudud, laakiin indhaha raggooda waxay ugu muuqdaan kuwo qurxoon, kuwooda ugu quruxda badan. kuma milmaan ragga shisheeyaha, lamana keliyoobaan. mideedna gurigeeda nin ma galo iyadoo uu ninkeedu maqan yahay. ma cabbaan khamriga, ma ciyaaraan khamaarka, ma macsiyaystaan. mudane Macron, dadka muslimka ah ee halkaas ku dhaqan waa kuwo rumaysan nebiyada dhammaantood, xitaa Nebi Ciise oo ay nooga jacayl badan yihiin isaga iyo hooyadiis Maryama oo aan ugu magac daray naftayda. jacaylka weyn oo ay u hayaan awgeed iyo qadarinta iyo sarraysiinta makaaneed. waad i weydiin kartaa, sidee bay masiixa u jecel yihiin inagu intaan jecelnahay in ka badan?
aniga ayaa kaaga jawaabaya haa way inaga jecel yihiin masiixa sababtoo ah waddankeenna faransa wuxuu ku daadiyey dhiigga dad badan oo aan waxba galabsan magaca masiixa waxaan burburinay dhulkoodii hantidoodiina waan soo dhacnay waxaan ku raaxaysanaynaa khayraadka dalal muslimiina siyaabo kala duwan ayaan baad uga qaadnaa madaxdooda shacabkaas ayaan isku dirnaa dhexdooda waxaan ka abuurnaa fitno rabshado kadibna waxaan ka iibinaa hub si ay isugu dilaan laakiin weli waxaan ula dhaqmaynaa sidii inay iyagu yihiin argagixiso inkastoo ay dadkaasi ka warqabaan inaan inagu dhab ahaantii nahay argagixisada saxda ah ee aanay iyagu argagixiso ahayn si kastaba ha noqotee iyadoo ay taasi jirto aniga iyo kuwii kale ee ila afduubnaa waxay noola dhaqmeen anshixii masiixa ee aan ku soo barannay kiniisadaha laakiin runtii inagu ma dabaqno kumana dhaqanno mudane macron gunaanadkii ma aanan doonayn inaan ku dhawaaqo islaamnimadayda aniga oo ku sugan maali si aan loo odhan waxaan qaatay diinta islaamka iyada oo aan seef hoos fadhiyo waxaan go'aansaday inaan ku dhawaaqo islaamnimadayda aniga oo xor ah kuna sugan dhulka faransiiska si aan fariintayda islaamka u gaadhsiiyo malaayiin faransiis ah iyo yurub labadeeda qaybood kuwooda kiristanka ah iyo kuwooda eebba inkiray mulxidiinta mudane macron tani waa diinta islaamka ee aad la dagaalamayso habeen iyo maalin qalbigayga ayay dhaqaajiso oo maskaxdayda ayay buuxisay mar dambe faransa igu muuqan mayso mid leh qurux lala ashqaraaro inay tahay mid ka qorxoon maalida saboolka ah ee tabarta daran bal waxaan go'aansaday inaan mar kale ku laabto maali laakiin waxaan ku laabanayaa marka aan casuumad ka helo ehelkayga iyo kuwa aan jeclahay ee islaamka ah maxaa yeelay waxaan ka doonayaa inay dhadhansadaan macaanka waxa aan ka dhadhamiyey cibaadada eebbe keliya ma jiro alle xaq lagu caabudo alle mooye kaasoo ay u sugnaatay naxariista gaarka ah iyo midda guud waxaana iyaga la doonayaa wanaagga adduun iyo aakhiro adiga qudhaada macron waxaan kuugu yeerayaa islaamka iyo inaad dib ugu laabato xisaabaadkaaga diintan weyn taasoo ah dhambaalkii nebiyada oo dhan iyo rususha laga soo bilaabo aadan ilaa ciise iyo ugu dambayntii ilaa mudanihii aadmiga nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabadgelyo ha u ahaato kuwa raaca hanuunka marian betronin warqadan ay marian betronin u dirtay madaxweyne emmanuel macron waxaa turjumay dr saadiq enow waa cabdirasaaq jubbo inlayntaan dib u kulmayno